gabar aan hadda rabin inaan sheego meesha ay ka timid ayaa waxay ka imaatay gobol ardayda jaamacad ay rabtay inay ka gasho Muqdisho jaamacadii Muqdisho markay imaatay way ku cusbayd magaalada qof dhalinyarana way ahayd goboladana waxa laga yaabaa dadka Muqdisho dhaqankeeda qaarkood in aad u fahansaneen waa aragtay waxa jaamacadaha magaalada la soo raacaa baskan caasiga la yiraahdo caasiga raacday caasiga markay raacday aad u ciriir u yahay caasiyaasha magaalada qof walba marka waa aad waa la isla fariistaa waliba aad la isku ciriiriyaa gabadhan gobol ay ka imaatay may aqoonin gaarigan iyo saxmadan dadkan maartay aad ka soo karfuulay xariif marka yaa la soo fariistay waliba aad u ciriiriyay ciriirigi ay way banda waxay leedahay ninkan maadaama meel ay arki jireen waxyaalahan ninkan maxay tahay maanta dhab kugu soo sikanaya mar walba ciriirin gaarigu aad u ciriir u yahay way weydiiso waxay dhahday maxaa dhacay tiri xagee u socotaa ilaa mogta qofka haduu korkaaga saaran yahay oo kugu soo sikanaya waa weydiinaysaa waxay tiri marka luqada u adeegsataa waxay tiri xagee u socotaa ninkaana wuxuu u mooday gabadhan walaashiisa inay weydiinayso goobta u socdo wuxuu ku dhahay macmacaan kale meesha waxa ka dhacay dagaal gabadha ka baysiibatay laba u gelisay gaariga waa la joojiyay buuq badan aan dhacay dadka kala dhan fahansana marka waa la weydiiyay gabadha ninka maxaa ku haystaa ruuxa tiri waxaan saqajaanka ah dayuuska ah intuu isoo kor fulaadana macmacaanka u socda waa arin aad u dhib badan ay ku noqotay gabdhii qaar gaariga saarnaa ayagu way yaqaanaan Soomaa caadi waa nimanka dhan macmacaanka u socdaan maxaa waa uga sii darta Soomaa gaariga dhan bay ka degtay waxa tir meeshan gaari ay soo raaceen dad aan caadi ahayn way marka waxaan kula talin lahaa dadka Soomaaliya gudaheeda waxa ka dhacay qisooyin saasa qofka raba Turkiga inuu aado oo luqad kale iyo dal kale iyo lahjad kale muxuu kala kulmi karaa ha degdegin marka waxyaalaha ujeedada aan leeyahay waxa kamid ah erayada kala duwanaan kara macnaha kala duwanaan kara adiga ha isdhiin meel kale loo socdaa taana waa iga mid waa iga talo waxaan rabaa hal arin oo kale inaan ka hadlo soo koobo faculty-ga aad dooranaysiin jaamacadaha waxyaalahaas ka hadlay kulleeba qof walbana waxa umaleeyaa seminar uu ku haystaa aada faculty-yaasha dib loogu qabaa qof baa wuxuu u gelayaa jaamacadda ama faculty-ga saaxiibkay baa dhigta ama saaxiibkay ku dayana ama waalidka ay u qasbaya qofka noocaas waxa laga yaabaa inuusan hore u sii wadin waa la daba dhagan yahay ma ahana dhowr qiso iyo dhowr sheekaan inta rabay inaan ka sheego laakiin waxa la leeyahay waqtiga ebera waxyaalaha dhaqanka cusub oo aan rabo ayada laftirkeeda inaan ka hadlo waxa kamid ah ayaantan dhalinyarada wax baratay aad looga cabanayay xataa waxa jira dad raba inay maaragtay aad u social media oo kale marka laga hadlo dhalinyarada waxyaalaha waxa loo soo qaadaa hadda la yiraahdo heeso iyo xataa see dareemay xagee maraysaa kale waad la garanaynaa baalaha la isticmaalay daawooyinka maan dooriyahay dhalinyarada aad ayaan tan ugu soo bateen waxyaalaha in la iska daayo wax ku talin lahaa maadaama saaxiibkii Cabdulle uu garab taagan yahay fursad group ku soo dhawaada fursad qaaliga ah idin hayso waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan